بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. halkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa rabbi hadduu qadaro barnaamijkeennii qisaska ahaa. waxaan barnaamijkanagi ku bilaabi doonaa qisadii dheereed. qisadan waxay dhex martay xajaaj bin yuusuf athaqafi oo aad garanaysaan amiir ka ahaa dhulka ciraaq dowladdii amawiyiinta xilligeeda, iyo wiil yar oo ka dhashay bani haashim. xajaaj waxaa abtiyaal u ahaa reer bani umaya oo mucaawiya uu ka dhashay. wiilkan yarna wuxuu isir ahaan ka soo jeeday reer bani haashim oo cali bin abi aalib uu ka dhashay, dagaalna uu ka dhexeeyey labada qolo. qisadu waxa ay ku bilaabanaysaa xajaaj bin yuusuf athaqafi. xajaaj bin yuusuf athaqafi ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa uu aaday inuu soo ugaarsado. waxaa u baxay ugaarsi. xajaaj bin yuusuf athaqafi waxaan nidhi waxa uu baxay ugaarsi si uu u soo ugaarsado ugaar. ninkii xajaaj ahaa markii uu bannaankii magaaladii ka tegey buu wuxuu arkay wiil yar oo gacanta ku haya 9 ey xarga ay ku xihan yihiin. 9 ey xarga ay ku xihan yihiin ayuu gacanta ku hayay wiilkii yaraa. xajaaj wuxuu soo dul istaagay wiilkii yaraa 10 jirka ahaa eeyaha xargahooda gacanta ku hayay wuu soo dul istaagay. su'aal buu weydiiyey, wuxuu ku yidhi, wiil yahow maxaad samaynaysaa? wiilkii yaraa intuu kor u eegay buu wuxuu yidhi, waxaad ii sidaa war aanan ku farxin. waxaad igu eegtay indha dadka lagu liido. waxaad igula hadashay hadal isla weyni ku jirto. hadalkaagu ruux isla weyn ayuu u eg yahay, caqligaagana caqli dameer ayuu u eg yahay. xajaaj wuxuu yidhi, ima garanaysid miya? wiilkii yaraa wuxuu yidhi, wejigaaga madowgiisa ayaan kugu gartay markaad hadal igu bilowday adigoon i salaamin. xajaaj wuxuu yidhi, war hooge, soo ma ogid inaan xajaaj ahay? wiilkii yaraa wuxuu yidhi, ilaahay gurigaaga ma soo dhoweeyo, martidaadana ilaahay kuuma sooro hadal badnidaa oo karaamo darnidaa. xajaaj hadalkii intuusan dhammayn, wiilkii yaraa uu kortaagnaa isagoo dultaaganoo hadalkiina uu dhex socdo unbaa askartii waardiyeynaysa xajaaj bin yuusuf athaqafi soo kala carartay. waxay yidhaahdeen, taliye, hadal waan ku maqlaynaaye, na amar waan samaynaynaaye. xajaaj wuxuu yidhi, wiilkan yar ii qaada. hadalkiisii aad buu ii xanuunjiyey. ii kaxeeya qasrigayga meel ka mida iigu xidha. wiilkii yaraa bay kaxeeyeen, qasrigii bay meel ka mida ku xidheen. xajaaj wuxuu iska soo dhammaystay ugaarsigii. waxa uu ku soo laabtay qasrigiisii. markii uu kursigii fadhiistay buu wuxuu ku yidhi, ii soo saara wiilkii yaraa. wiilkii baa waxaa la keenay qasrigii xajaaj uu ka talinayey ee ay fadhiyeen wasiiradii iyo ciidamadii kuwii ugu sarsareeyey. wiilkii yaraa markuu meeshii soo istaagay wuxuu yidhi, assalaamu calaykum. salaantii wax ka celiya ayuu waayey oo ka radiya. markaasuu dhinacyaha intuu eegay buu wuxuu ku jawaabay hadalladan soo socda: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. 3 aayadood buu ku dul akhriyey. wuxuu yidhi, meel walba waxaad ka dhisaysaan calaamad oo guriga xajaaj uu deggan yahay quruxdiisii iyo sida uu muraayadaha u yahay ayuu la yaabay. markaasuu wuxuu yidhi, watattakhiduuna masaanica, warshada ayaad dhisanaysaan lacallakum takhluduun, sida inaad adduunka ku waaraysaan. wa idaa badashtum, haddaad ruux qabataan aad rabtaan inaad xukuntaanna, badashtum jabbaariin, dad madax adag oo xadgudbay idinkoo ah ayaad dadku qabanaysaan. xajaaj sidaa ayuu kursi ugu jiifa gadaalgadaal wuu soo fadhiistay. dadkii meesha joogay ilmo dhowrahoo ka mid ah ayaa wiilkii yaraa waxay ku yidhaahdeen, wax adaba ma lihid. amiirka markaad u soo gelaysay salaan u qalanta ma aadan salaamin.
soo ma ogid inaad amiirka ciraaq gurigiisa ku jirto maad si fiican u salaantid wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaad tihiin digada dameerka in aan salaanta noocaasi ku salaamo xajaaj waxaa ii diiday waan daalay buu yidhi waddo dheer bay isoo mariyeen jaranjarooyin dheerna way isoo saareen markaan gurigan qasrigan soo gelayay salaanta aad doonaysaan quruxda badan inaan ku salaamo xajaajna waxaan ku salaamayaa amiiruulmu'miniin iyo asxaabtiisa ayaan ku salaamayaa oo wuxuu ula jeedaa cali bin abi aalib iyo asxaabtiisii ayuu ula jeeday xajaaj wuxuu yidhi wiilkiibuu su'aal weydiiyey wuxuu yidhi maanta waxaa timid buu yidhi wiil yahow ajashaadii geeridaadii baa soo dhowaatay rajadii noloshii adduunyada aad ku lahayd inaad sii noolaato wiil da'yar baad tahayna way baaba'day wiilkii yaraa wuxuu yidhi xajaajow ajashayda hadday gacantaada ku jirto hadalkaaga ima dhibayo wax yar iyo wax badan waxaad igu tidhaahdaba ma dhibsanayo wiilashii meeshii fadhiya qaarkood baa waxay yidhaahdeen jahligaaga iyo edabdaradaada waxay ka gaartay khabiidkii wuxunka ah amiiruulmu'miniin inaad sidaa ula hadasho sida carruurta facaaga aad ula hadlaysa miya adab malihid bay dhaheen fiiri qofka aad la hadlayso si adab iyo usluubna ugu jawaab ixtiraamna u samee waa amiirkii ciraaq iyo shaam wiilkii yaraa wuxuu yidhi ma maqal miyaa buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisii ma idan maqal miyaa soo ilaahay ma dhihin يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون naf walba iyadaa isu doodaysa soo lama dhihin anigaa isu doodaya idhaafa xajaaj baa marka wiilkii hadal ku bilaabay oo wuxuu ku yidhi hadalkii hadda aad lahayd yaad ula jeedday salaantii gaarka ahayd oo hebel baan salaamayaa yaad ula jeedday wuxuu ku yidhi waxaan ula jeeday amiiruulmu'miniin baan ula jeedoo cali bin abi aalib baan ka waday cali bin abi aalib iyo asxaabtiisii baan ka waday adigana wuxuu yidhi xajaajow haddii lagu dhihi lahaa salaanta noocaasi qof salaam yaad salaami lahayd xajaaj bin yuusuf athaqafi wuxuu yidhi cabdilmelik ibni marwaan baan salaami lahaa oo cabdilmelik markuwaasi waa reer bani umaya waana boqorka markaa talinayo xajaaj uu ka amar qaato wiilkii yaraa wuxuu yidhi ma cabdilmeliga faajirka ah lacnadda allah ha ku dhacdee tii malaa'igta iyo tii dadkaba ha ku dhacdee makaas ayaad salaamaysaa xajaaj wuxuu ku yidhi maxaad u tidhi cabdilmelik faajir maxaad u tidhi wuxuu yidhi khalad yar uu galay baa muslimiin badan dartiisa loo baabi'iyey dadkii meesha fadhiyey wasiirradii iyo dadkii xajaaj la joogay xilka meesha qayb ka hayay qaar ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen xajaajow wiilkan dil maxaa dhacay daacadii amiirkii in la adeeco la rabay wuu ka baxay jamaacadii in lagu dhex jiro la rabayna wuu ka dhex baxay oo dadkii isku duubnaa bannaanka ayuu ka taagan yahay cabdilmelik ibnu marwaanna wuu aflagaadeeyey marka in la dila ayaan ku xukunnay wiilkii yaraa wuxuu yidhi xajaajow dadkan kula fadhiya edab u yaal waa dad jaahiliinah waxa aan ahay ma fahmayaan xajaaj baa dadkii wuxuu ku yidhi aamusa anii isaga isu keendaaya xajaaj baa wiilkii wuxuu weyddiiyey wuxuu ku yidhi ma garanaysaa walaalkay xajaaj waxaa walaal la ahaa nin sidiisoo kale u dhib badanoo yaman mas-uul ka ah marka wuxuu yidhi ma garanaysaa walaalkay wiilkii yaraa wuxuu yidhi haa walaalka waa fircown markuu nebi muuse u yimid iyo haaruunoo wada socdo si carshigii uugu fadhiyey isagas ay uga qaadaan dadkii la fadhiyey buu la tashaday adigana fircoon baa walaal kula ahoo kuwan kula fadhiya ayaad la tashanaysaa xajaaj wuxuu yidhi qoorta ka gooya marba haddii fircoon la sheegayba wuxuu yidhi qoorta ka gooya ruqaashi nin la yidhaahdo waa xajaaj ka agdhow wasiirrada ugu dhowdhow ah baa intuu xoogaa wiilka yaraa u naxay buu is yidhi wiilkan yar haddii qoorta laga gooyo da'dan yar waa ilmo yare bal badbaadi markaasuu wuxuu yidhi amiiruulmu'miniin oo xajaajow ilaahay ha kuu gargaaree inaadan wiilka dilin isku day aniga isii buu yidhi anigaa barbaarinayoo tarbiyaynayee isii xajaaj wuxuu yidhi kaxayso ilaahayna kuuma barakeeyo wiilkii yaraa baa sida addoon camal loogu gorgortamayaa kaxayso ilaahayna kuuma barakeeyo wiilkii yaraa wuxuu yidhi uma mahad celinayey buu yidhi kii i bixiyey iyo kii la isiiyey midna uma mahad celinayo xajaajoo wax isiiyo qaado dad yidhi iyo kii i qaadanaya labaduba mahad iguma laha ruqaashigii wiilkii yaraa u turayo inuu kaxaysta rabay baa wuxuu yidhi waryaa sideed u hadlaysaa inaan geeri kaa badbaadiye ayaan doonayey adigana hadalkan miyaad igula hadlaysaa intuu yidhi buu xajaaj eegay buu yidhi amiirow ma doonay inaan kaxaystee waxaa doonta ku samee xajaaj marka wuxuu yidhi wiil yahow dhegayso waddankeed ka timid wiilkii yaraa wuxuu yidhi masar baan ka imid xajaaj wuxuu yidhi magaaladii faasiqiintii baad ka timid miyaa dhul faasiqiin baad ka timid
wiilkii wuxuu yidhi maxaad ugu magacowda magaalada faasiqiinta xajaaj wuxuu yidhi biyaheedana waxaa lagu cabaa weelal dahaba dumarkeeduna magaalada aad ka timid waa dumar heesaha ciyaaro oo meelaha ku boodboodo naylka webiga nayl ee dhexmarana waa webi cajiib ahoo dadku ay la yaabaan ehelka deggan masarna cajab ma aha carabna ma aha wiilkii yaraa wuxuu yidhi haddaba anigu magaaladaa kama iman la soco xajaaj wuxuu yidhi xaggeed ka timid wiilkii wuxuu yidhi ahlu khuraasaan baan ahay dhulkii muslim iyo bukhaari ay ka soo baxeenoo iiraan iyo afghanistaan dhulkaa ayuu sheegtay xajaaj wuxuu yidhi min sharri makaan meel lala yaabo shar badan baad ka timid diinkuna ku yar yahay wiilku wuxuu yidhi maxaad sidaa u tidhi xajaaj wuxuu yidhi waa dad cajam ah oo aan carab ahaynoo cajam ah weeye waa sidii xoolaha ariga iyo lo'd iyo geeloo kale weeye hadalkoodu wuu culusyaho lama karo midkooda qaniga oo hantida lehna waa bakhayl wiilku wuxuu yidhi haddaba anigu magaaladaa kama iman xajaaj wuxuu yidhi xaggeed ka timid wiilkii wuxuu yidhi dhulka shaam ayaan ka imid xajaaj wuxuu yidhi waxaad ka timid dhul fiican le'anna dhulkaa isaga uu dhul fiican ku tilmaamay waa dhulkii mucaawiya looga gargaaro markuu cal la dagaalamayo wuxuu yidhi waxaad ka timid dhul fiican laakiin meelaan ka nibcahay aniga ma jirto waa meel dadka ka yimaada jidhkoodu uu adag yahay wiilku wuxuu yidhi haddaba anigu meesha kama iman xajaaj wuxuu yidhi xaggeed ka timid wiilkii wuxuu yidhi yaman baan ka imid xajaaj wuxuu yidhi waxaad ka timid magaalo dadkeeda aysan kasaynin haddii ixsaan loo sameeyo waa mahadsan tahay waa walaalkiisa ayaa ka taliya wiilkii yaraa wuxuu yidhi maxaa sidaa u tiri xajaaj wuxuu yidhi codkoodii wuxuu yidhi wuu mac yahay hadalkooduna wuu jilicsan yahay midkooda caqliga badanna wuxuu isticmaalaa miyuusiga iyo heesaha kan jaahilkana khamriga ayuu cabbaa wiilkii yaraa wuxuu yidhi anigaa ka mid ma ahi haddaba kuwaa xagga kama dhalan xajaaj wuxuu yidhi xaggeed ka timid wiilku wuxuu yidhi reer maka ayaan ahay xajaaj wuxuu yidhi waxaad ka timid kuwa shar badan oo jaahiliin ah caqligoodu yar yahay dhul ay ku nool yihiin baad ka timid wiilkii yaraa wuxuu yidhi maxaad sidaa u tidhi xajaaj wuxuu yidhi waa qolo ilaahay uu nebi wanaagsan ka soo dhex saaray nebigii bay beeniyeen wayna eryeen qolo ayaa ilaahay ku badbaadiyey oo ilaahay uu ku soo dhoweeyey nebiga isaga ah jeclaaday karaameeyey wiilkii yaraa wuxuu yidhi haddaba anigu meesha kama iman xajaaj wuxuu yidhi jawaabahaagu waa igu bateen qalbigayga wuxuu ii sheegayaa inaan ku dilo wiil yahow inaan ku dilo wiilkii yaraa wuxuu yidhi geeridayda hadday gacantaada ku jirto adigaa ma ku caabudi lahaa ee xajaajo waxaad ogaataa aniga inaan ka imid magaaladii rasuulka inaan ka imid ogsoonow madiinatulmunawara inaan ka imid xajaaj wuxuu yidhi magaalo wanaagsan baad ka timid dadka deggan waa ahlu iimaan waa dad wanaagga jecel ee qabiilka aad ka dhalatay ii sheeg xajaaj wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaan ka dhashay reer la yidhaahdo bani khaalib ayaan ka dhashay oo isir ahaanna uu ka dhashay cali bin abi taalib nasab walboo adduunkan ku abtirsada qolana wuu baabba'aa nasabkanagii mooye haddaan annaga nahay reerka nebiga ma baabba'ayno ilaa maalinka qiyaama waan jiraynaa xajaaj intuu aad u carooday buu yidhi wiilkan madaxa ka gooya dadkii meesha fadhiyey baa waxay yidhaahdeen xajaajo waa wiil yara in la dilo ma mudnee maad iska daysid xoogaha iyaguna caatifadan oo dhinacan rasuulka iyo familkiisi way qaaday xajaajna way ka baqayaan xajaaj wuxuu yidhi maya khasab waxaa ah in la dilo wiilkan xitaa hadduu samada ka dhawaaqo ruux dhawaaqayo uu yidhaahdo yaan la dilin oo wuxuu ula jeedaa malag xataa hadduu ilaahay soo diray yidhahdo wiilka yaan la dilin wiilka in la dilo waa qasab wiilkii yaraa wuxuu yidhi nebi ma tihide yaa samada kaaga dhawaaqayo xajaaj wuxuu yidhi oo inaan ku dilo hadda yaa iga kaa hortaagan ayuu xajaaj wiilka weyddiiyey wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaana kala taagan inaad idisho ee ruuxa qalbiga iyo ruuxa kala dhexgala waa ilaahay buu ula jeedaa allaha kala dhexgala ruuxa iyo qalbigiisa ayaa aniga iyo adigana inaad idisho iga kaa celinayo xajaaj wuxuu yidhi ilaahayga aad sheegayso isaga ayaa igu kaalmaynaya aniga inaan ku dilo adiga wiilkii yaraa wuxuu yidhi maya ilaahay kuguma kaalmaynayee shayddaankaaga ayaa kugu kaalmaynaya inaan aniga idisho ee ilaahay baan ka magan galay adiga iyo shayddaankaagaba xajaaj wuxuu yidhi wiilyow waxaan ku arkaa jawaabtaadu inay fara badan taho aad iigu jawaabayso ee wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa ruuxa wuxuu alle ugu dhowaan kara ma ii sheegi kartaa wiilkii yaraa wuxuu yidhi haa ilaahay waxaa loogu dhowaadaa soomka iyo salaadda sakada iyo xajka ayaa ilaahay loogu dhowaadaa xajaaj wuxuu yidhi aniga ilaahay waxaan ugu dhowaanayaa dhiiggaaga sababtoo ah waxaad i tidhi waxaan ahay ilmihii xasan iyo xuseen faracoodii baan ahay soo ima aad dhihin haa inaan aniga ku dilo baan ilaahay ugu dhowaanayaa oo xasan iyo xuseen iyo faracaasi ayuu aad u nabcaa xajaaj bin yuusuf athaqafi
wiilkii yaraa wuxuu yidhi isagoon cabsi iyo argagax midna ku jirin aniga waxaan ahay buu yidhi awlaaddii rasuulka ayaan ahay sala allahu calayh wasalama ajashayda iyo geeridayda hadday gacantaada ku jirto shayddaankaagii ayaa yimid buu yidhi si uu aakhiradaada u fasahaadiyo ayuuna kugu yimid oo inuu aakhiro kaa fasahaadiyo ayuu doonayaa wiilkii yaraabaa ku jawaabay oo xajaaj baa wuxuu ku jawaabay wuxuu yidhi ma waxaad leedahay awlaaddii rasuulka ayaan ahay oo geerina waad necabta waad ka baqaysaa miya wiilkii wuxuu yidhi mayo ilaahay sooma dhihin walaa tulquu biaydiikum ila tahluka gacmihiinna halaagha isku gelinina ilaahay sooma dhihin xajaaj wuxuu yidhi yaa ku dhala wiil yahow ii sheeg wuxuu u raadinayaa hadallo inuu wiilka wax un ku daayo markaasuu wuxuu yidhi yaa ku dhala wiil yahow wiilkii yaraa wuxuu ku jawaabay hooyo iyo aabbo ayaa i dhalay hooyo iyo aabbo unbaa i dhalay xajaaj wuxuu ku yidhi xaggeed ka timid wiilkii yaraa wuxuu yidhi dhulkan ballaaran oo ilaahay abuuray meel ka mida ayaan ka imid xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa wiil yahow carab yaa u karaamo badan carabta reerka ugu deeqsinimo badan ee wax bixinta badan yaa weeye wiilkii yaraa wuxuu yidhi banuu tayi qabiil la yidhaahda ayaa carab ugu deeqsinimo badan xajaaj wuxuu yidhi maxay deeqsinnimadaa banuu tayi iyo karaamadaa ku gaareen wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaa ka dhashay xaatimul asam ninka la yidhaahdo ayaa ka dhashay xajaaj wuxuu yidhi carab yaa u sharaf badan haddaba qabaa'ilkii buu soo tirinayaa carab yaa u sharaf badan wiilkii yaraa wuxuu yidhi banuu mudar baa u sharaf badan qabiilka banuu mudar la yidhaahdo ayaa u sharaf badan xajaaj wuxuu yidhi maxay sharafta ku gaareen wiilkii yaraa wuxuu yidhi nebi moxamed sala allahu calayh wasalama ayaa ka dhashay qabiilkaa isaga ah xajaaj wuxuu yidhi carab yaa u geesinimo badan qabiilka carab ugu geesinimo badan ii sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi banuu haashim baa u geesinimo badan waa jilibkii nebiga uu ka dhashay sababtoo wuxuu yidhi banuu haashim geesinimo waxay ku gaareen cali bin abi aalib baa ka dhashay xajaaj wuxuu yidhi carab yaa u nijaasaysan qabiil ahaan qabiilka ugu nijaasaysan uguna bakhaylsan uguna khayr daran waa qabiilkee wiilkii yaraa wuxuu yidhi banuu haqiif qabiilka yidhaha reer bani haqiif ayaa ugu nijaasaysan oo ugu bakhaylsan ugu khayr daran sababtoo ah adigan xajaaj ayaa ka dhashay buu yidhi xadiidka nebigana wuxuu noo tilmaamay reer banu haqiif waxaa ka soo bixi doona namruud baa ka soo bixi doona iyo beenaalayaal beenaaluhuna musaylime ayuu ahaa oo nebinimo sheegtay nabruudkuna waa adiga uu yidhi oo dadka iska baabi'inaya xaqooda iyo dhiiggooda iska baabi'inayo xajaaj intuu caroodo aad u xanaaqay buu wuxuu yidhi madaxa ka gooya dadkii meesha fadhiyaa waxay yidhaahdeen wiilku wuu yaryahee iska daa xajaaj intuu caradii xoogaa isu yara dejiyey ayuu wuxuu ku yidhi geelaagii geesaha lahaa xaggeed kaga soo tagtay geelii geesaha lahaa ee aad raacaysa wiilyow xaggeed kaga soo tagtay wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaan kaga soo tagay buu yidhi geelii geesaha lahaa waxaan kaga soo tegay isagoo daaqaya geedka la yidhahdo suwaan caleemihiisa waa geedan caleemo dhallo qodxo keliya leh ayuu u tilmaamaya wuxuu leeyahay geedka suwaan caleemihiisa isagoo daaqaya ayaan ka soo tegey xajaaj intuu qayliyeybu wuxuu yidhi waryaa waxyahu caqliga aan lahayn maskaxdiisuna ay maqan tahay geedka suwaan miyaa caleemo leh geedka suwaan miyaa caleemo leh wiilkii yaraa wuxuu yidhi xaggeed ku aragtay geel geesa le adna waa adiga i weydiinaya geelaaga geesaha lahaa xaggeed kaga soo tagtay geel geesa le xaggeed ku aragtay markaad geedka caleenta aan layn caleen u diidaysid xajaaj wuxuu yidhi wiilyahow qur-aanka ma xafiday wiilyahow qur-aanka ma xafiday wiilkii yaraa wuxuu yidhi qur-aanka miyaa iga cararaya markaan xafidayo ma isagaa iga baxsanayo markaan xafidayo xajaaj wuxuu yidhi qur-aanka ma kulmisay oo ma uruurisay wiilkii yaraa wuxuu yidhi markaan uruurinayo qur-aanka miyaa kala daadsanaa qur-aanka miyaa kala daadsanaa markaan uruurinayo xajaaj wuxuu yidhi ima fahmin su'aashayda miyaa wiilkii wuxuu ku yidhi waxaad i tidhaahdaa buu yidhi aad i weyddiisaa qur-aanka ma akhrisay mana fahantay idheh buu yidhi sidaa su'aasha ii weydii xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa qur-aanka aayadda ugu weyn bal ii sheeg waxaadna ii sheegtaa qur-aanka aayadda ugu xukunka dheer xukunka marka la yidhahdo qur-aanka aayadda ugu xukunsan ii sheeg qur-aanka aayadda ugu cadaaladda badan ii sheeg qur-aanka aayadda markii la akhriyo ugu cabsida badan ii sheeg qur-aanka aayadda markii la akhriyo ugu rajada badan qofka bini'aadamka rajada gelisa ii sheeg waxaad ii sheegtaa aayad qur'aan ah oo 10 calaamadoodoo cadcad ilaahay calaamadaha lagu garanayo ay ku jiraan ii sheeg waxaad ii sheegtaa aayad ay ku jirto been ay sheegeen ilmo nebi uu dhalay iyo aayad ay ku jirto run ay sheegeen yahuudda iyo kirishtaanka iyo waxaad ii sheegtaa aayad ilaahay hadalkiisa uu ku jiro isaga uu isaga hadlay waxaad ii sheegtaa aayad malaa'igta hadalkeeda ay ku jirto
waxaad ii sheegtaa aayad hadalka ahlu jannaha uu ku jiro waxaad ii sheegtaa aayad hadalka ahlu naarkana ay ku jiro waxaad ii sheegtaa aayad ibliis hadalkiisa lagu sheegay wiilkii yaraa wuxuu yidhi dhegayso wuxuu yidhi aayadda ugu weyn ee qur-aanka ku jirto waa aayatulkursi aayadda qur-aanka ugu xukunsanna إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي aayadda qur-aanka marka la akhriyo ugu cadaaladda badan waa فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره oo cadaaladda ayay tilmaanto qof walba wuxuu ula yimaado unbaa loo miisayaa aayadda wuxuu yidhi qur-aanka ugu cabsida badan waa aayadda ilaahay uu ku sheegay أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم ayatamacu ma wuxuu rajaynayaa kullu mri'in qof walboo idinka mida oo minhum gaala ka mida an yudkhala jannata naciim qof walboo gaal adduunka joogo ma inuu janno iska gala ayuu doonayaa aayadda ayada ah ayaa aayadda ugu damaca wanaagsan ah wuxuu yidhi aayadda ugu rajada badan ruuxa markii uu rajo uu doonayana inuu akhriyo laga rabo waxay tahay aayadda ilaahay قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم oo ah addoommadayda xadka gudbay waxaad u sheegtaa inaysan ka quusanin naxariistayda ilaahay dembiyada oo dhan wuu dhaafaa aayad ay ku jirto 10 calaamadood oo lagu garanayo calaamadaha ilaahay lagu garanaya ah waxa weeye buu yidhi إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب oo micnaheedu ay tahay samaawaadka 7 ah iyo 7 dhul waxaa ku jirta iyo habeenka isbedbedelkooda iyo maalinka aayado ilaahay lagu garanayo oo waxa uu sheegay 7 cir iyo hal dhul oo 8 ah iyo habeenkii iyo maalinkii 10 kaga dhigay ayaa lagu sheegay qur-aanka wuxuu yidhi aayadda ay ku jirto been ilmo nebi ay sheegeen waa aayaddii nebillaahi yuusuf walaalihiisii markii ay ceelka intay ku rideen aabbahood aadeen ay u sheegeen inuu dhurwaa cunay وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون waxay la yimaadeen qamiiskii nebi yuusuf dhiig beenaha iyagoo ku soo shubay waxay ahaayeen waa ilmihii nebi yuusuf la dhashay been bay sheegeen jannada ayayna galeen sidaa ayuu leeyahay aayadda ay yahuudda iyo kirishtaanku runta ku sheegeenna waa aayadda ilaahay uu leeyahay وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب kirishtaanku waxay dhaheen yahuuddu wax diina ma haystaan yahuudduna waxay yidhaahdeen kirishtaanku waxba diina ma haysto run bay sheegeen oo diin ma haystaan haddana naar bay galeen buu yidhi aayadda ilaahay uu nafsadiisa xaqiisa uu ka hadlayna waxay tahay وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون jin iyo insi uma abuurin inay caabudaan mooye waa xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay ayay aayaddaa tilmaantay aayadda ku jirta hadalka nebiyada waxay tahay وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ma aha inaan idinla inamaano xujo cad inaan idin keenno ilaahay idinkiisa mooye idima keeni karno aayadda ay ku jirto hadalka malaa'igta waxay tahay قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت
حكيم إله وحقاله يا أقول ملهن وحي أدنا برتي مويه آيات هذا أهل الجنة وكجروا وحي تهب وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إلهي بقى ما حد إسكاله تيرانيدي يمرقدي النار تان كبقينا عذاب كنا بدبادية ونقبت بادية إلهي قاسي ربي قرناك إنا كل شكرنا أيوم مذيهي آيات أهل النار كهذا الكود يكون جرت وحي تهي ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون إله النار إنك سار حدان الله بنو فإنا ظالمون مرضا بحدان دنبغا أو كلا كل بنو أنك أيا ظلم بدن سدا أيا يمحوها كعلى عليان آيات هذا الكإبليس وكجر إلهين قرآنك وكشا وحيتاي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنيق أياك خير بدل آدم والنار بعد كعبورتي آدم ندوب أيات كعبورتي سدا أيدا أيو شيء حجاج ويلك مركو إنت دميي بالسؤال ويدي وحيري وحاد إيش يكتاقف لقى عبوري هوذا إيا قف لقو بدباديه هو إيا قف هو لقو دلي ويلك راوحيري روح هوذا لقى عبوري والنبي عيسى عليه السلام ونفع لقى عبوري روح هوذا لقو بدباديينا والنبي سليمان دبيل إيا وحباء وشقين جرو وكو بدبادي جري روح هوذا لقو دلينا قال هوذا لقو بابيينا وقوم عادو وحال لقو دلي إيقنا هوذي إيا دبيشي لقو هلاقي حجاج وحيري وحاد إيشاكتا روح لقى عبوري جيد نف جيد لقى عبوري إيا روح جيد لقو دلي إيا الروح جيد لقو بدباديي انتما إيشاك ويلكي راوحيري وحا جيد laga sameeyo naf aho geed laga abuuray ushi nabi Muuse alayhi salaam markii ay maska isu bedeshay ayadoo geed ka samaysan bay mas isu bedeshay hadana ruuxa geedka ilaahay uu ku badbaadiyay waa nabi nuuxo markii dhulkii cirka biyaha ka yimaadeen dooni geed ka samaysan baa ilaahay ku badbaadiyay ruuxa geedka lagu dilayna waa nabi zakariya oo dadkiisu ay ku dileen xajaaj wuxuu yiri waxaad ii sheegtaa ruux biyo laga abuuray ruux biyo lagu badbaadiyay dhexdooda iyo ruux biyo lagu halaagay wuxuu yiri wiilkii yaraa waxa biyo laga abuuray aadam calayhi salaam waxa biyo lagu badbaadiyay nabi muuse oo badi ka gudbay waxa biyaha lagu dilayna fircawn iyo qoomkiisa xajaaj wuxuu yiri waxaad ii sheegtaa wax naarta qof naarta laga abuuray iyo qof naar laga badbaadiyay wiilku wuxuu yiri naar waxa laga abuuray ibliis naarna waxa laga badbaadiyay nabi ibraahim markii lagu riday godkii dabka ahaa xajaaj wuxuu yiri marka wiilkii yaraa uu su'aal kale weydiyo waxa uu yiri waxaad ii sheegtaa buu yiri wabiyada jannada iyo tiradooda ii sheeg wiilkii yaraa wuxuu yiri wabiyada jannada mara aad bay u fara badan yihiin oo tiradooda ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa garan kara soo ilaahay ma dhihin buu yiri مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى إلهي صومدهن جنة وحا كجرو وبيال بيو آن اسبدلين وبيال عانا ددنكودو بدلمين إيوه وحا كجرو وبيال خمري oo qofka caba qolada cabta ay dhadhansanayso iyo wabiyaal malabaho saafiyaala ayaa ku jira soo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ma uusan dhihin markaasuu wiilkii yaraa wuxuu yiri dhammaantood buu yiri wabiyaasha aad arkayso hal meel bay ka soo wada burqadaan iyagoo caano iyo biyo iyo khamri iyo muxuu ahaa malab isla ah bay haddana hal meel ka soo burqadaan iskumana darsamaan buu yiriyo biyihii caanihii baa istaabta lama dhahayo wuxuu yiri mid la mid ah wabiyaasha iyadu sidaa ahna kuwa lamid ah adduunyada ayaa laga helaa oo madaxa bini aadamka ayaa laga helaa wiilkii yaraa wuxuu yiri wabina dhadhankiisa wuxuu yiri waa dhanaan wabina dhadhankiisa waa kharaar wabina dhadhankiisa wuu macyahay haddana wabiyada iyaga ah iskuma darsamaan oo wuxuu ula jeedaa isha biyaha ka soo baxo ilintu waa dhanaan buu yiri dhagta dhukayga iyo malaxda ka soo baxdana waa kharaar
afka candhuufta ka soo baxdana waa macaan saddexduna madaxii bay ka soo baxaan haddana iskuma darsamaan xajaaj wuxuu yidhi ahlu jannuhu way cunaan way cabbaan mana saxaroodaan ee wax la mid ah ahlu jannaha ma laga helaa adduunyada ruux intuu cuno cabo aan saxaroon wiilkiiraa wuxuu yidhi haa waa uurku jirka caloosha hooyada ku jiro ubadka yar waxbuu cunaa waxbuuna cabaa mana haddana caloosha hooyada ku dhex saxaroonayo xajaaj wuxuu yidhi waxaad sheegtaa buu yidhi dhiiggii ugu horreeyo adduunyada ku dhibcay markii ilaahay uu aadam iyo abuurayba dhiiggii ugu horreeyo dhulka ku dhibcay ma sheegi kartaa markaasuu wiilkii wuxuu yidhi haa waa dhiiggii xaawo ka yimid xaydka ahaa caadadii kaa ayaa ugu horreeyey wax dhiig ah oo dhulka ku dhibca xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa caqliga bal wax iiga sheeg iimaankana wax iiga sheeg caqliga wax iiga sheeg iimaankana wax iiga sheeg xishoodka wax iiga sheeg deeqsinnimada wax iiga sheeg geesinimada wax iiga sheeg karaamada iyo sharafka wax iiga sheeg shahwada iyo qooqana wax iiga sheeg buu yidhi waad garata soomaan wiilkeedaa wuxuu yidhi haddaan wax kaaga sheego caqliga ilaahay 10 buu u qaybiyey 9 ragga ayuu siiyey halna dumarka ayuu siiyey iimaanka ilaahay 10 buu u qaybiyey 9 reer yaman baa la siiyey halna adduunka kalaa loo qaybiyey xishoodka ilaahay wuxuu u qaybiyey 10 9 dumarka ayaa la siiyey halna ragga ayaa la siiyey deeqsinimada ilaahay wuxuu u qaybiyey 10 9 ragga ayaa la siiyey halna dumarka ayaa la siiyey geesinimada iyo sharafka ilaahay 10 buu u qaybiyey 9 carab baa la siiyey halna adduunka ayaa loo qaybiyey shahwada iyo qooqa iyo damcuna ilaahay 10 buu u qaybiyey 9 dumarka ayuu siiyey halna ragga ayuu siiyey waad garata soomaa wuxuu yidhi ilaahay caqliga 10 buu u qaybiyo 9 waxa uu siiyey ragga halna dumarka ayuu siiyey iimaanka ilaahay wuxuu u qaybiyey 10 oo 9 reer yaman baa la siiyey halna adduunyada kale ayaa loo qaybiyey xishoodka ilaahay 10 buu u qaybiyey 9 dumarka ayuu siiyey halna ragga ayuu siiyey deeqsinnimada ilaahay 10 buu u qaybiyey 9 waxa uu siiyey ragga halna dumarka ayuu siiyey geesinimada iyo sharafka ilaahay wuxuu u qaybiyey 10 carab 9 buu siiyey sharaf jaceylka iyo geesinimada carab 9 buu siiyey halna waxa uu siiyey adduunka inta ka soo hartay qooqa iyo waxdoonkuna damaca ilaahay 10 buu u qaybiyo 9na dumarka ayuu siiyey halna ragga ayuu siiyey xajaaj markaas wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa su'aal baan ku weydiinayaaye qofka muslimka sanadkii hal mar wax ku waajiba ii sheeg wiilku wuxuu yidhi waa soonka xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa qofka muslimka cimrigiisa hal mar wax ku waajiba wiilkii wuxuu yidhi waa inuu beydka ilaahay u soo xajiyo xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa waxa kuugu dhow hadda adiga agtaada kuugu dhow ii sheeg wiilku wuxuu yidhi aakhiro ayaa ii dhow aakhiro ayaa hadda ii dhow xajaaj wuxuu yidhi subxaana allah ilaahay baa xumaan ka fog buu yidhi qofkuu doono ayuu xikmad siiyaa buu yidhi ma arkin buu yidhi wiil adiga cilmi iyo caqli iyo maskax kugu dhan ma arkin wiilkii yaraa wuxuu yidhi waan mudanahay in la isiyo waan mudanahay inaan helo xajaaj wuxuu yidhi dadka yaa u xaqnimo badan inay khaliif noqdaan qofka inuu xukumo dad xukumo yaa u xaqnimo badanoo qofka inuu dadka hoggaamiyo wiilkii yaraa wuxuu yidhi kan dadka markay khaldamaan iska cafiyo wanaagna ugu beddela labada qofood ishaysatana cadaalad u sameeyo xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa haweenka bal wax iiga sheeg haweenka bal wax iiga sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi wiil yar baan ahoo 10 jir ah haweenna weli ma aanan guursan dumarna weli ma aanan shukaansan welina lama aanan seexan oo ma aanan jeclaan maxaad iga weydiinaysaa balse haddii aad jeceshahay waxa dadka ay ku sheekaystaan oon meelaha ka maqmaqlay baan wax kaaga sheegayaa markaasuu wuxuu yidhi xajaajow haddaad hesho gabar 10 jir ah xuurulciin baad gacanta ku haysaa buu yidhi gabar 10 jir ah haddaad hayso xuurulciin ayaad gacanta ku haysaa iyosan kaa fakan waad garata soomaan xuurulciin baad gacanta ku haysaa iyosan kaa fakan 20 jir haddaad heshana muraayad iyo wax dhaldhalaalaya qurux badanood fiiriso indhahaagu qabtaan waad haysataa 30 jir haddaad heshana jannatu naciim janno iyo barwaaqaad gacanta ku dhigtay 40 jir haddaad heshana cad iyo cadiin iyo baruur baad gacanta ku haysaa 50 jir haddaad heshana wiilal iyo gabar waad heshay 60 jir haddaad aragtana 60 jir maxaad iga weydiino oo faa'iidada kugu jirta maxay tahay buu yidhi dambiyaa kugu jirto 70 jir iyo 80 jirna waa cajuuso gabowday isaga fogow ka carar 90 jirna waa shaydaane ka tag 100 jirna waa asxaabul jaxiime isaga carar xajaaj intuu qoslay
qosol la dhacay buu wuxuu yidhi dumar teebaa u wanaagsan dumar teebaa u wanaagsan wiilkii yaraa wuxuu yidhi dumar waxaa u wanaagsan buu yidhi tan muuqaalkeeda iyo dhismaheeda jidhkeeda quruxdeeda ay ku qanciso carabkeedana uu fasiix yahoo aan lahayn carabgajo iyo shigshig midna aanan ku jirin marka ay ku soo qaabisho soo socoto horteeda aad aragtanu naaska ibtiisa u nuuxnuuxso dhagdhagdhag u dhaho markay sii jeesatana barida ay gadaal u sii ruxanto xajaaj wuxuu ku yidhi waxaad ii sheegtaa buu yidhi qofkii ugu horreeyey ee shicir tiriya adduunyada inta la joogay ii sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi aadam calayhi salaam buu ahaa ruuxii ugu horreeyey ee shicir tiriyey wuxuuna tiriyey wiilkii qaabiil markii uu dilay walaalkii haabiil uu dilay ayuu nebi aadam isagoo baroor diiqanayo shicirkan tiriyey oo wuxuu yidhi bakat caynii ishaydii way ooysay waxuqa lahaa bukaahaa inay oysana xaq bay u leedahay wadamculcayni isha ilinteeda munhamilun yasiixu way dareeraysaa wax dareeraya weeye famaa lii maxaa igu dhacoo laa ajuudu aanan ugu deeqaynin wiilkayga bisakbi damcin ilin inaan u qulquliyo wahaabiilu wiilkii haabiil ahaana tadammanahu dariixu dhulka hoostiisa iga maray ramaa qaabiilu qaabiil waxa uu riday uu ku tuuray dhagaxa haabiilan akhaahu walaalkiisii haabiil ahaa ayuu dhagax ku dilay waalxaddu fi hara alwajhu asabiixu wuxuu yidhi xadkuna sida muuqato wejhigii ifayey wuu aasmay tagayarat ilbilaadu ifkoo dhan wuu isbeddelay tagayarat ilbilaadu ifkoo dhan iyo adduunkoo dhan wuu isbeddelay waman calayhaa iyo wixii ku dul nool fa wajhu اlardi dhulka dushiisa muqbarun kashiixun waa ku isbeddelayoo midabkiisa doorsoomay tabaddala kullu dii طacmin wa lownin mid walboo dhadhan lahaa midab lahaa wuu isbeddelay lifaqdika weynta aan ku waayey yaa sabiixu yaa maliixu kii wanaagsanaa aan jeclaayow ayaa haabiilu haabiilow in taqtul haddaad dishay walaalkaa in tuqtal dheh haabiilow haddii lagu dilay fa innii calayka addahru mukta'ibun qariixu inta aan noolahay waan kuu tiiraanyoonayaa oo adiga ayaan kuu walwalayaa sidaa ayuu nebi aadam ku calaacalay fa anta xayaatu man fi اlardi jamiican inta dunida ku nool noloshooda waa adiga waqad faqaduuka yaa ruuxu wariixu kii carfayoo wanaagsanaayo way ku waayeen wa anta rajiixu qadrin yaa fasiixu waxaa tahay ruux la waayey oo loo baahnaa saliimun bal samiixun bal sabiixun waxaa tahay ruux magangelyo iyo badbaado ku jiray bal cafin badan baad ahayd bal ruux wanaagsan baad ahayd walasta mayitan ma tihid ruux geeriyooday bal anta xayun waad nooshahay buu yidhi wa qaabiilu shaqiyu doqonkii ku dilay gacanta kula tegey huwa ariixu kan dhintay maanta adduunyada waa isaga calayhi sakhtu min rabbi albaraayaa caradii ilaahay dushiisa ha ku dhacdo wa anta calayka tasliimun sariixun badbaado iyo nabadgelyo dushaada ha ahaato sidaa ayuu ku calaacalay nebi aadam wiilkiisa marka la dilay markuu calaacalay kadib baa shicirkii labaadoo jawaabta waxaa u tiriyey ibliis oo meel ka dhow nebi aadam taaganaa baroordiiqiisana maqlayey wuxuu yidhi tanuuxu waad qaylinaysaa cala albilaadi magaalooyinka ayaad ku qaylinaysaa waman calayha iyo ciddi dul saaran baad u qaylinaysaa wa fi lfirdowsi jannadiina qad daaqa bika alfasiixu ciriiri kugu soo noqotay jannaduna ciriiri bay kugu soo noqoto adii ilmahaagoo janno ku jiro ayaad ku soo noolaan weysay wa kunta bihaa janno ayaad ku noolayd firdowso wasawjika iyo wiilkaaga iyo wasawjika xaaskaaga fii naciimin barwaaqo ayaad ku sugnaadeen min almawlaa allaha idin abuurta uu idin siiyey wa qalbuka mustariixun qalbigaagana wuxuu ahaa qalbi raaxaysanaya khadactuka aniga ayaa ku khayaamay fii dahaa'ii maskaxdaydii ayaan kugu khayaamay uma makrii dhagartayda beenta aheedun kugu dhaartay baan kugu khayaamay ilaa an faataka alcayshu arashiixu noloshii barwaaqada badneed ee jannada ilaa ay kaa soo gudubtay faqaala xajaaj wuxuu yidhi marka ii sheeg buu yidhi wiil yahow carab shicir ay tirisay midka ugu qiimaha badan ii sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi shicirkii uu tiriyey xaatimu taa'i ayuu ahaa markii uu yidhi wa ukrimu dayfa waxaan karaamaynayaa martida xatman qasab iyo dirqin anigoo ay igu tahay xiina yatruqunii markuu ii soo garaacay albaabka qabla alciyaali intaanan carruurtayda siinin waxa ay u baahan yihiin calaa cusrin haddii faqri uu yahayo
wa iisaarin iyo haddaan dhaqaalo haystaa intuba ilmahayga waxaan ka hormarinayaa martida albaabka ii soo garaacdo ninkii yidhi shicirkii uu tiriyey ayaa ugu qiimo badan shicir la tiriyo xajaaj wuxuu yidhi wiil yahow waad mahadsan tahay waadna wanaajisay cilmigaagii faraha badnaana waad nagu deeqday ee waxaa qasab ah annaguna inaan ku karaamayno waxaan ku siinayaa buu yidhi 1,000 diinaar waxaan ku siinayaa dhar qurxoon waxaan ku siinayaa gabar waxaan ku siinayaa seef waxaan ku siinayaa faras xajaaj markaasuu si hoose intuu isula hadlay wuxuu yidhi wiilkan hadduu qaato faraska waan dilayaa maya hadduu faraska qaato wuu iga badbaaday inta kale laakiin hadduu qaato waan dilayaa sidaa ayuu xajaaj isu yidhi wiilkii buu arrintii u sheegay arrintii baa la keenay waxaa la keenay lacagtii 1,000 diinaar ahayd iyo maradii qurxooneyd iyo gabadhii iyo seeftii iyo faraskii baa la keenay markaasuu xajaaj wuxuu yidhi wiil yahow waxaa doonta ka dooqo wiilkii intuu islahaa keed qaadataa baa gabadhii addoontii ahaydoo wiilka la siinayo ku jirta wixii la qaybinayey baa intay wiilka u iljibisay bay waxay ku tidhi aniga i qaado waxaan odhan anaa kaaga fiican lacag maxay kuu taraysaa faras muxuu kuu tarayaa seef maxay tartaa mara qurxoon maxay sheegtaa aniga ayaa kaaga fiican aniga i qaado intay wiilka u yara iljibisay markaasuu wiilkii wuxuu yidhi dan kaamalihi buu yidhi dan kaamalihi markaasuu shicir yar u tiri wuxuu yidhi lijaankan iyo madaxan guduudan ee ruxmayo faraskii buu ula jeedaa ayaan ka jeclahay waxa aad iigu iljibinayso inaan adiga ku qaato ah waxaan ka baqayaa buu yidhi haddaan firaashkii gogasha ku duldhacoon xanuunsado cilladii iyo jiradaydana ay dheeraato inaadan ila sii joogin waxaan ka baqayaa haddaan meel haadaan ka dhacno zamankuna uu i beddelo inaadan ii gargaarin jiis iyo wax haddaan noqdo inaadan ii gargaarin waxaan ka baqayaa haddaad lacagta yaroon haystood iga weyso in aad dadka lacagta lahoo cadowgayga ah iga raacdo gabadhii baa u jawaabtay waxay tidhi ilaahay baa xumaan ka fog bay tidhi waxaad i tidhaahdaa ayaan samaynayaa haddaad gacantayda bidixda goyso midigtaydana aad goyso sirta ninkayga qalbigayga ayaan ku qarinayaa waxaan ku qancayaa wixii yar uu ii keeno iyo wixii badanba haddaad ila noolaato dabcigayga waad garan doontaa waxaad ogaan doontaa ruux lala noolaada kan ugu khayr badan inaan aniga ahay ayaad ogaan doontaa waa garsooma xajaaj wuxuu yidhi marka gabadhii buu arko gabay tirinayso wiilka u iljibinayso hoogto ma xishootid miyaa wiilka intaad u iljibisay baad weli shicir ugu jawaabaysaa miyaa wiilkii yaraabaa marka intuu hadlay wuxuu yidhi xajaajow waxaad ii keentay buu yidhi faras 1,000 diinaar mara qurxoon gabar seef haddaad khiyaar isiisood itiraada keed qaadan lahayd faraskaan qaadanayaa buu yidhi aniga haddaad khiyaar isiiso faraska ayaan qaadanayaa waa faraskii la yidhi hadduu qaato wuu ku badbaadayaa faraska ayaan qaadanayaa ayuu yidhi haddaad khiyaar isiiso adiga laakiin haddaad xalaal tahay oo dhiig xalaal iyo dhacaan xalaala aad ka dhalatay kulli baad isiinaysaa xajaaj wuxuu yidhi qaado ilaahay kuuma barakeeye qaado kulligooda ilaahay kuuma barakeeye wiilkii yaraa wuxuu yidhi waan kaa gadoomay buu yidhi adigana ilaahay wax ka dambeeya intaad isiisay kuma siiyo ani adigana mar dambe ilaahay nama kulmiyo wiilkii yaraa markii uu isku qaatay faraskii 1,000 diinaar maradii seeftii gabadhii markuu isku qaatay buu wuxuu yidhi xajaajow xaggeen ka baxaa xajaaj gurigiisa albaabo badan buu lahaa irdaha qaar markii laga baxo qofka madaxa laga gooyaa qaar qofka gacmaha laga gooyaa qaar qofka xabsi baa la dhigaa qaar qofka waa la karaameeyaa xaggeen ka baxaa buu yidhi xajaajow xajaaj wuxuu ku yidhi albaabkaas ka bax buu yidhi haddaad ka baxdo waad ku badbaadaysaaye dadkii meesha fadhiya waxay ku yidhaahdeen wiilkan sidan kula hadlay ad adeegan carabta aysan qabin kula hadlay hadalladan jawaabahan xunxunka ku siiyey albaabka uu ku badbaadi lahaa uu ka bixi lahaa maxaad ugu tilmaantay halla dilay maa albaabka lagu dili lahaa u tilmaantid xajaaj wuxuu yidhi hadduu iska bixi lahaa albaab xun ka bixi lahaa ma aanan celiyeen laakiin wuu ila tashaday buu yidhi xaggeen ka baxaa ayuu i yidhi qofka haddii lala tashadana waa inuu aamin noqdaa qof lala tashaday waa qof la aaminay wiilkii yaraa wuxuu ka baxay albaabkii buu ka baxay isagoon waxba la gaarsiinin gabadhii faraskii 1,000 diinaar maradii qurxooneed
seeftii intiiba isla qaatay buu ka baxay ilaahayna uu ku badbaadiyey qisadeennii intaa ayay ku soo dhammaatay